bahda saxaafadda salaadiinta waxgaradka mujaahidiinta rag halkan dadka halkan iskugu yimi waan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan garanaya saldhigu wuxuu yahay sidaa suldaanku sheegay horta laba wadanoo la ixtiraafsan yahay ayaa waxay wada galaan waxa heshiiska la ydhaa innaka lama arrimood baa meesha inoo yaalla waxaa laynoo keenaa memorandum of understanding wax la ydhaahdo waa isfaham laakiin imaaraadkuna ma yeelayo innakuna maba haysanaba awoodda aynu ku saxeexayno saldhig military oo waddankeena la soo dejiyo dhibaatada sidaa la sheegayo imaaraadku waxay ka mid yihiin waxay qayb ka yihiin dagaalada ka socda waddankaaynu jaarkanahay yaman oo aada u sii xoogaysanaya waxaad la socotaan markab sacuudigu leeyahay in maal dhaweyto lagu riday sawaariikh waxaad la socotaan markab abudabi ay leedahay inay la socoto inay lagu riday iyo kana sawaariikh halkan berbera waa istaraatiijiyada ugu weyn ee la isticmaali karo east africa marka wadannada la yidhaahdo geeska africa sidaa daraaddeed wax dhayal ku bixi karaa ma aha waxaa la yidhaha wax exclusivity la yidhaha baa jiro oo tuuga ah oo waa maxay waxa weeye waddanow xasan sheekhow adaa luu ixtiraafsan yahay annaka agreement noola gal imaaraadka oo annakuna markaasi wax yaroo memorandum understanding la yidhaha ama isfaham la yidhaahdo anu somaliland ka seexan marka dhibaatada ay noogu keenayso dad yar baynu nahay maraakiib yar baa inoo keena baa mushtariga iyo waxaynu cunno kuwaasuna baabalmada waa meesha ay marayaan waa international shipping line meeshu marka maraakiibteenaasina baa mushtarigiina way naga joogsanaysaa waxna ma beerano waxaynu cunnana ma hayno halkaas waxay noo soo maraan china ilaa somaliland marka waxaan leenahay nabadgelyada aan haysanno ee aanu ku naaloonayno ee noo wanaagsan eenaan cidna godob ka gelayn waxaan doonaynaa in laga joojiyo dawladduna ka fikirto baarlamaanku ka fikiro guurtidu ka fikirto cawaaqib xumada ka iman doonta saldhiggaasi halkaa laga bixinayo waxaanu inagu keenayaa inaynu qayb ka noqonno sidaa yuusuf sheegayo mujaahidku diyaaradda F-16 markay ka duusho 9 daqiiqo wax ka yar ayay ku gaaraysaa halka ugu dambaysa Yaman oo soo garaaci kartaa airportka berbere soo fadhiisanaysa gantaal baa laga daba keenaya marka wax alla waxaynu ku doorsanayno oo inu godobtaa u galayno oo Abu Dhabi ay noo qabatay oo Arabi noo qabatay ilaa maanta ma hayno sidaa daraaddeed waxaanu ka soo horjeednaa oo diyaar u nahay waliba inaynu difaacano saldhiggaasi sidaanu iman karayn berbere saanu soo fadhiisan karayn inaynu difaacno ayaanu diyaar u nahay oo ku noqonayna haddii ilaahay waxaanu uga digaynaa dalalka adduunka caalamka waxaanu u sheegaynaa annaku dalda ictiraafsaya ma nihin wax heshiis la yidhaahna ma geli karo cidda tuugadee noo gelaysana waanu garanaynaa annaka wax isfaham la yidhaaho annaka lagu maaweeliyo oo la mariyo baarlamaanka oo guurta la mariyo oon heshiis hayn heshiis maaha heshiis annaku maba geli karo ictiraaf ma haysano saa daraaddeed waxaan leenahay yaan badna lagu tuurin la muquurinayo in cawaaqib xumo Soomaaliland iyo dadkeeda ay u keento. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.